السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتي إذا دل iyo dibad meel walba aad joogtaan waxaa idin leeyahay shacbaan wanaagsan 15 shacbaan oo 15 ugu dambeeyay aan joognaa maasha Allah tabaarakallah ramadaanka waa maalin yar noogu hartay ilaahay cumri dheer iyo caafimaad Allah na wada gaarsiiyo insha Allah ilaahay ha nagu wada gaarsiiyo insha Allah haddana maanta waxaan samaysanaynaa hordhaca ramadaanka cuntada ramadaanka waxaan rabnaa inaan samaysano wax walbaba step by step idin tuso ismi haddana soo dhawaada hadda waxaan rabaa inaan ka bilaabo bajiyaha waa kaasa digirtaas soo diyaarsanaysaa kadibna qudaartaad ku dari laheed soo diyaarsanaysaa laakiin muhiimadda digirta wax yar waa inaad karisaa aad xoogaha karisaa si makiinada markaa u shiidaysid ee u jalaado oo u sahlanaato kadibna waxaa samaysanaysaa toonkii basashii xawaajigii wixii dhan iyo kabsar caleentii dhan aad isku daraysaa kadib markaas makiinada ku shiidaysaa makiinada gacanta ii taalo makiinada gacanta oo usha ii taalay kaas daraaddeed kaasoo ku shiista alxamdulilah waa kaasaa saanay ugu soo baxday marka ayr gacantaada inaad ku fidisid waay haddaa gacantaada ku fidi karin waa isleedahay gacanta silsilidii waxaas ma u rabo qaadaa ku samaysan kartaa waa kaasa maasha Allah sidaas quruxda badan oo noogu soo baxay hadda bajiyihii sidaa noogu dhammaaday basbaaskii lagu cuni lahaa cagaarkana meeshuu yaalaa marka asxaabey waxaan idinka codsanayaa walaalaha kale inaad sii gaarsiisid haddana waxaan gelaynaa sambuuska diyaarintiisa waxaan rabnaa inaan idin tusno sambuuska sida ugu fudud loo diyaariyo iyo waqtiga uu qaadanayo hadda waxaan sameynaynaa hadda waxaan idin tusayaa asagoo fifidinayo asagoo dhan oo dhammaystiran wax walba ku jirana warqadaas ay idin soo saaray meesha oo idin saaran yahay hadda waxaa meeshan ku haystaa 3 koob oo bur ah iyo wax yar cusbaan ku darsaday saliid ma ahna waxaan ku darsaday biyo yar oo xoogaa diiran marka waan walaaqaya gacantii aan ku walaaqa maxaa rabaa inaan burka isdhexgeliyo aan cajiimo maadaama makiinada saliidda makiinada cajimaysa aysan oolin laakiin mar walba waxaan ka jeclahay gacanteeda inaan ku xasho si fiican u xashaysaa markaad xashtid oo isdhexgalo maxaa yeelay fooliyada waxaa loo baahan yahay inuusan aadna u jilcin inuusan aadna u adkaanin marka waa kaasa marka gacantu ka qabanayo saliidaas waxay ka caawinaysaa qabashada saxanka ama gacanta inay kugu dhigto burka kugu halawdo saliid yar dhac ku siisanaysaa maasha Allah tabaarakallah burkii fooliyada waa noo diyaarsan yahay haddana waa u jeedaa waa diyaarinaynaa walaalkayga ama walaashayda waxaan ka codsanayaa muuqaalkan hadduu ku soo gaaro inaa walaalaha kale aad gaarsiisay si u faa'iideystaan adigoo ku soo gaaray walaalaha kale si nasiib ugu yeeshtaan ee wax u faa'iideystaan waxaa laga yaabaa inay ku dhiban yihiin sida fooliyada loo sameeyo haddana ramadaan wax yaraan oo dhiman waxaan rabnaa hordhacan waxaa ugu soo dhignay inaa maanta walaalahayga aan u faa'iideeyo maasha Allah tabaarakallah adigana wadaad faa'iideysatayna commentiga noogu reeb wax walba waxaad faa'iideysatay iyo ra'yigaaga intaba waa noo muhiim anigana dhiirigelinay ii tahay fooliyada markaa fidinaysid muhiimadda markaa wax yar saa u fidisid waxaa laga rabaa saliid yar inaad u dhaxaysiisid iyo bur yar sababtoo ah 2 xabo 3 xabo ama 4 xabo isdul saaraysaa haddii kale saliid la'aan iyo bur la'aan way isqabanaysaa fooliyada hadhow ma ku faqayso midda kalena fooliyada ma la rabo inay culays ay ahaato waxaa la rabaa inaysan ahaanin culays zaa'id ah khafiif zaa'id ah inaysan ahaanin yacni dhexdhexaad inaad ku fidisid gacantaada mar walba waa loo baahan yahay inaad qiyaasta aad bartid qiyaastaasna waxay ka caawinaysaa sambuuskaaga ama wax walba aad samaynaysid inay ku soo baxaan heer sare maasha Allah tabaarakallah wili fooliyadii ku jirna waa ujeedaa haddii adigoo kugu adig yihiin 5 xabo 4 xabo inaad isdul saartid waxaad ka dhigan kartaa 2 xabo isdul saari kartaa adigoo saliidaas isticmaalaysid saliidaasna waa kuu sheegay waxay ka caawinayso 2 xabo markaasaan isku dul saartid waa isla simaysaa kadibna markaa geesaha isku la sintid markaas usha soo qaadanaysaa aad ku fidinaysaa waxay ku sahlanaysaa inaad si fiican aad u fidisid maasha Allah tabaarakallah sambuuska markaas wuxuu noqonayaa heer saro oo aad iyo aad u fiican maasha Allah tabaarakallah qof walba oo cunane oo ka heli doono markaas adiga midi ama baashan pizza hadaa haysanin midi inaad ku jijaratid afar meel inaad u dhaxaysiisid midda kalena waxaa laga rabaa digsigaas birta canjeerada inaad dib ka soo saaratid laakiin dib aan aad u kululeen
waa inaad gaabisaa. waxaa la rabaa haadi deb ah ama deb aad u yar oo very slow ah meesha ugu dambeysay ah. markaas hore iyo gadaal marka hoos ay karto haddana kor ayaad haddana u gedinaysaa. maasha allah tabaaraka allah. waa ujeedaa foolyadeeni oo qurxan oo noo soo baxday. wallah waxaa noo soo baxday foolyo aad iyo aad khafiif u ah, aad iyo aadna duwidsta ugu fiican, aad iyo aadna laabidana sambuuska ugu fiican tahay. indhahana u roonaan doono insha allah hadduu ilaahay idmo. waa idin tusayaa wax walba. waxaan jeclahay inaan idin tuso step by step. haddaba adiga nasiib waa u yeelatay, adigoo nasiib u yeeshtay videogan ha iska gudbinin oo ha dhihin sambuus leela sameynaya. sambuuska si walba oo kala duwana loo sameeyaa. aniga waxaan jeclahay mar walba sida ugu fudud waqti yar ay ku qaadanaysa inaan kuu saaro oo meesha aan kuu soo dhigo. maasha allah tabaaraka allah. adiga daqiiqad ama 2 daqiiqo inaad fiirsatid ha iska gudbinin. videoga nasiib hadaa u yeelatay, ilaahay nasiibkaas kuu yeelay. walaal waxaan kaa codsanayaa inaad dhamaysatid. haddii aad ka heshayna mar walba waxaad inaad noo soo saartid qoraalka ama like inaad noo saartid. like mar walba dhiirgelinaya ii tahay. waxaan wax kasii fududna waan keenayaa. marka hilibkii hadda qasayaa. hilibka waxaan rabaa dibkuu ii saaran yahay. waxaan rabaa inaan biyaha aan ka saaro. biyo dhanna kuma dareysid, saliid kuma dareysid. hilibka keliya saaraysaa dibka, kadibna biyihiis asagaa soo baxaayo. maasha allah tabaaraka allah. wax yar cusbaa ku darsanaysaa iyo inta meeshan waxaan kusoo darsaday kabsar caleen waa ujeedaa iyo toon oo soo tumay. waxaan rabaa inaan hilibka sambuuska aan ku carfiyo. hilibkaas sambuuska qofkii cuno wallaahi wuu ka sheekey doonaa. maasha allah wuxuu dhihi doonaa maasha allah qoftan gacanteeda ilaah u barakeeyo. midda kalena hadda waxaan ku darsanayaa toon shiidan. toontan waa toontii oo la shiiday budada ah iyo xawaaji kaari inaan ku darsado. cusban hore ugu soo darsaday waa ku walaaqaysaa. waxaa la rabaa inay qaleel ay naqato ilaa ay qaleel ay ka naqato. ha ka dejinin. haddii iyadoo qoyan aad dejisid hilibkoo dejisid waa hadhow foolyaday kaa haleynaysaa. foolyada waxay noqonaysaa mid jilicsan. haddana waa ujeedaa basashii oo soo jarjartay, laakiin aniga jarjarad oo yar ma soo jiran. laakiin waa soo hoolay oo waxaan kusoo hoolay mar walba shaqo fududa samaystaa. waxaan kusoo hoolaa kan oo maxaa la isaga jiiska ama waxa lagu hoolo toonkii waxaas lagu hoolo ayaan kusoo hooshtay. maasha allah tabaaraka allah. mar walba taasaa kaaga fudud jarjarada maxaa yeelay indhahay kaa gelgelaysaa. waa ujeedaa hadda waxaan rabaa basashii iyo hilibkii inay isdhexgalaan iyo isku dhacaan. dibka caybaar adiga 10 daqiiqo in ka badan ama 15 daqiiqo meelahaas saa u saartid. basashan biyo leedahay, hilibkan biyo leeyahay. waxaa la rabaa labadaba biyada inaad baabi'isid dibka aad ku baabi'isid. marka walaalkeyga ama walaasheyda waxaan jeclahay mar walba inaan sidaan waqti aan kuu soo geliyo si adiga kugu faa'iiday lahay. wax lacaga kaa maraba aniga wax kale aan ku weydiisanayna ma lahan. just waxaan kaa rabaa like-gaas kaliya iyo subscribe-kaas. intaan igu soo dhiirigelisay, intaan dhiirigelintiina aan kusoo gaaray asxaabta aad iyo aad u mahadsantihiin. awaalkiinana waxaan idin leeyahay jannada wax kaloo ka weyn ma jirto. adduun iyo aakhiraba jannada wax ka weyn ma jirto. marka asxaabey aad iyo aad waxaa ugu mahadsan tahay mar walba videogan soo dhaco oo adiga kusoo gaarayo oo maanta aad sugaysid markuu soo dhaco inta fiirsato. aad iyo aad ugu mahad celinayaa. awaalkoodana waa u sheegay. haddana hor waa u sheegay awaalkiina janno insha allah. cumriga waalidkiina iyo cumrigiina waa allaha idin dheereeyo insha allah. cadowgii xaasidkana allah niga qabto. haddana sambuuskii xirxirayaa hal qaada iyo bar ama 2 qaado ka dhigi kartaa sida adiga sambuuska aad adiga u rabtid inuu gudaha xashka ugu jiro iyo foolyada inta ay ku samaysan tahay dhammaanba qiyaastiisa adiga wato. laakiin aniga ahaanteeda 2 qaada ka dhigtaa. maasha allah tabaaraka allah. waa ujeedaa sambuuska hadda wax yaraa idinka tusayaa maxaa yeelay sambuuska oo dhammaystiran inaan laalaabo yani waqti badan ay qaadanaysaa. waxaan rabaa videoga inuu soo gaabto inkastoo aysan fiicneen video inuu dheer yahay. laakiin videogan maro hadda waxay ka tarjumaysaa afurkii iyo cashadii oo hal meel aan kasoo wada dhigaysaa u diyaarsan lahayd 20 daqiiqo gudahooda ugu diyaarsan lahayd. hadda just afurkaan haynaa waa cunooyinkan fudfudud aan hadda samaysanaynaa. haddana saliidii aan ku riday. saliidda markaad ku ridaysa sambuuska saliidda ha ahaato mid heerkul aad iyo aad u kulushahay, laakiin
aysan ahaanin saliid aan kululeen. Haddaa sambuuska aad ku ridid wuu kaa saliid cawayaa, sambuuska hadhow mar qofka cunayo saliiddii uu gudaha ka gashay u dareemayaa. ma fiicna saliid aan kululeen. marka hadda waxaan haynaa bajiyihii iyo sambuuskii. waxaa weli noo haray, ha degdegin oo ha ordin, ha u maleynin videogan oo intaan ku kooban yahay aan dhehe. sorry, hadalka iga qaldamay. waxaan soo wadaa casho kaloo dhammaystiran, baasto, makaroni iyo hilibkiisa iyo maxalla asaga rootigan oo malabka lagu sameeyo. ilaah afkeyga bengreb cake adiga macmacaan waxoogaa afka u fiican, sababtoo ah cashada waxay u fiican tahay markii la afuro haddana la casheeyo xoogaha yar macmacaan dambe inaa haddana lagu sii sheekeeyo familka ilaa iyo saxuurta laga gaarayo. maxaa yeelay maalintii oo dhan afka xiran yahay, waxaa loo baahan yahay wax macmacaan oo adiga afka xoogaha lagu macmacaansado, maadaama hadda dhanaan la cunayo oo sambuuskaasi waxaas maasha allah iyada naftirkoodana macmacaanka ay ka mid yihiin, laakiin dhanka dhanaanka loo tiriyo. maasha allah tabaarakallah. aad iyo aad waxaa ugu mahadsantihiin waqtigaad isiiseen iyo videoga waqtigaad ku daawanaysaan, dhiirgelinaysaan mar walbo. anigana sidaan waxaa iga keenay dadaalkan badan iga keenay, juhdigan badan iga keenay, waqtigan badan iga keenay, dhiirgelinta idinka dhiirgeliseen. aad iyo aadna waxaad ugu mahadsantihiin dhiirgelintiina mar walba. awaalkiina waxaan ku guda ma lahan. haddana waxaa noo bilaawanayaa cashirkeena kale oo cashadii hadda gudagelaynaa. afurka hadda waan ka baxnay oo wixii yaryarooga waan ka baxnay. hadda waxaan gelaynaa insha allah hadduu ilaahay idmo. waa ujeedaan hadda waxaan soo saaray meesha honeycomb baa la dhahaa, ama soomaali ahaan haddii la dhahaan rootiga oo adiga macaan, rootiga macaan ama chocolatka lagu cunaa macaanka dusha loogu daro. kanna waa baastadii aan rabno inaan diyaarsano. hordhac yaraa idinka soo sameeyey, step baa ula soco walaal. waxaan kaa codsanayaa inaad adiga aad degdegin videogan aadan ka bixin, step ula soco, sababtoo ah cashirkan adigaan kuugu talagalay. haddaad aragtidna waxyaala adiga aniga iga qaldan yihiin waad soo saxi kartaa, sababtoo ah aniga bini aadanaan ahay. wax walbo si qaldan anigoo is ilaalinayo wax waan qaldi karaa. midda kalene walaasheeda ama walaalkeyga caajiska iska dhaaf, guriga haddaad joogtid wax walba waa samaysan kartaa. meeshaan hadda waxaan kusoo shubtay 3 koob oo bur ah, maxaa yeelay aniga famil xoogaha iska balaaran manihi. aniga hooyo iyo walaalaheyga maasha allah hal meel ku wada cunteena. 3daas koob way naga badan tahay oo maasha allah ala xasib adiga familkaaga ay yihiin waaye. mar walba familkaaga hadday badan yihiin waxaa inaa badsatid, hadday familkaaga ay yaryihiin inaa yaraysatid. marka meeshaas waxaan ku haystaa 3 koob oo bur ah iyo 2 qaado sokor ah iyo 1 qaado oo khamiir ah ama leebato iyo caano aan rabaa inaan ku shubto iyo wax yar oo cusbo inaad adiga u qiyaasatid mar walba. laakiin aniga waxaan ku shubtaa wax yar, qaadada yar barkeeda wax yar oo afka u saaran aan ku shubtaa, sababtoo ah cusbada inaad ku badato ma fiicna. hadda waxaan xashayaa rootigaasaan xashayaa. waxaan rabaa inaan isdhexgeliyo oo inaysan aad kaaga jilcin way fiican tahay, inay aad kaaga adkaanina way fiican tahay. rooti hadduu aad u adkaado hadhow wuxuu noqonayaa bararkiisa markuu foornada la geliyo inuu dildilaaco, ama rootiga uusan noqonin baa mid adiga oo heerkii la rabay uusan gaarin, adeeg inuu noqdaa laga yaabaa. laakiin burka mar walba gacanta waxaa aniga u jeclahay inaan ku qaso, gacanteeda inaan ku qiyaastaan jeclahay. haddana waa kaasaa burkii waan qastay maasha allah. hadda waxaan sugayaa qadar 15 daqiiqo 15 daqiiqo kadib waa kana maasha allah tabaarakallah. waa asagoo diyaar ah oo soo diyaarsaday. marka hadda waxaan u qiyaasanayaa kuuskuuska qaabka aniga kuuskuusanayo iyo inta xaba aan aniga karabo iyo digsiga inta uu qaadayo. digsi walbaba qiyaastiisa waa inaa adiga gacantaada ku samaysataa, ku qiyaasataa. qiyaastaasna waa muhiim haddaad ka weynaysid iyo haddaad ka yaraysid. maxaa yeelay rootigan waxaa la rabaa inuu soo fufuuro. hadda waaba diyaar, waxaa waaye markaasaan u gelgeliyey cabaaraan daboolay adiga qadar 8 daqiiqaan sugay. xoogaa waa isqa qabsaday, waa ujeedaa rooti uu ku banaan yahay. kaliya waxaa dhiman inaa foornada la geliyo. dushana waxaan ka marmarinayaa ma ahan saliid waxaan marinayaa ukun iyo caano oo isku soo qasay, kadibna dusha aan ka marmariyey, kadib foornada la gelinaya qadar adiga 15 daqiiqo ilaa 20 daqiiqo. foornada markaa kasoo bixiyana waa kaasa, waa ujeedaa. waxaan haddana dusha kasii marinayaa subag ama saliid
ama zubda waxa la dhaho ayaad marmarinaysaa. marka asxaabey dushana waxaad ugu daraysaa haddaad rabtid caana macaan aad ku daraysaa, haddaad rabtidna chocolate aad ku daraysaa. laakiin aniga waxaan ku darsaday caana macaan aan ku darsaday, maxaa yeelay caanaha macaanka aad u jecelahay. haddana intan waxaan ku diyaarsanayaa maraqii hilibkii iyo baastada oo saltaatadan ku samaysan lahay baasta makaroonigii. hadda meeshaan digsiga waxaa kusoo shubtay wax yaroo saliid ah iyo basashii aan kusoo shiilay. haddana hilib arigana waa kusoo darsaday. aniga mar walba hilib ari hilib geel hadday ahayn hilib loo ma wagatiba, maxaa yeelay hilibka looda bada cudur ay u badan tahay. xoogaha waa yaanyada inay isku dhacdaa fiican oo digsiga ay ku saarnaato. markaad adiga yaanyada isku dhacdo maxaa yeelay waxaa ku sahlanaan kara dhidhin fiican oo inuu soo baxo oo maanta maraqi uu noqdo maraq dhiiqa ah maasha Allah, oo indhahana u fiican, caafimaad ahaanna u fiican, dhadhan ahaanna u fiican maasha Allah tabaarakallah. dushana waxaa ugu darayaa yaan shishiidkaas yar iyo toon iyo kabsar caleen oo isku soo shiiday. babrika yar aan ku darsanayaa, babrika, xawaaji iyo maxaa asaga curry powder iyo maraq digaag aan dusha ugu darayaa. maasha Allah tabaarakallah. maraqa wuxuu noqonayaa maraq aad iyo aad dhiiqa u ah oona aad u carfaayo. xoogaha yaraad sugaysaa, waad dabooleysaa adiga qadar 10 daqiiqo kadib haddana khudaar kale oo soo jarjaratay, bocorkan oo soo jarjaratay iyo karooto yar oo soo daarta soo jaranaysaa, hadaaratid baradha soo jaranaysaa. waa sida adiga khudaarta aad u jeceshahay. sida anaga carabta oo kale khudaarta uma jecelni. hadda videogan ka horeeyay oo cuntada carabeed aan soo gelinayo aan soo sameeyey. cuntadaas aad iyo aad waxaa ugu badneed saladka iyo khudaarta aad ugu badnaay. sababtoo carabtu waxay aad u isticmaalaan khudaartii aad u isticmaalaan, hilibka way iska yareeyaan. haddii si la fiiriyana caafimaad ahaan sidaas oo fiican khudaarta in la badsado maasha Allah tabaarakallah. haddana cuntadeena Soomaalida inkastoo cunto aysan noo dhaamin, anaga Soomaali haddii aan nahay hadda hilibkeeni iyo suugadeeni sidaan oo noo tahay. marka xoogaa biyihi ku kuleystay, biyihi ku darsaday. biyaha markuu soo karay kadib haddana baastada ku daray. waxaan rabaa baasto ay noqoto ina baasto isku karsan ay noqotaan jeclahay. baradhadan baradho ceeriin ma ahan, oo baradho aan saliida kusoo shiilay oo soo diyaarsaday aan dusha ugu daray xooga dhowr bisbaas, 4 bisbaas dhaca iskaga siiyey. kaasna waa bocor, sababtoo ah waxaan rabaa xoogaha inaan ku huuriyaan rabaa. wax walba way diyaarsan yihiin laakiin huurisaan rabaa xoogaha. markaa huurinayna foornadan geliyey. foornada markaa geliyey cabaar adii 15 daqiiqo markay xoogaa uu mitaata ay noqotay kadib waan kasoo bixiyey. maasha Allah tabaarakallah. baastadeena saan inoogu soo baxday oo baasta waxay noqotay baasta aad iyo aad u macaan badan, indhahana u fiican. wallaahi been kuma sheegay maasha Allah meel iska dhigtay. haddana waxaan rabaa inaan sameysto keeg yar. waxaan meesha ku haystaa adiga 7 xabo ukun ilaa 8 ukun. inta adiga aad awoodid, xataa haddaad awoodid 3 ukun ama 4 ukun waa ka samaysan kartaa. makiinadaas inaad haystidna waa muhiim. makiinadaas xoogaa ku dhaweysaa ukunta markaa ku shubtid, kadibna xoogaa sokor waa ku dareysaa, waa ku labaysaa. kaasna waa vanilla carfiso ama xoogaa burkaasna waa ku darsanaysaa kala harag maasha Allah tabaarakallah. burkana ma badinaysid, laakiin waxaa la rabaa cala qiyaasta ukunta adiga haysatid iyo keega adiga haysatid aad rabtid inaad samaysid iyo weelka adiga rabtid inaad ku samaysid inaad ku qiyaasanato maasha Allah tabaarakallah. marka koobkaas bur aan ku dhameeyey. koobka burna waxay kaa saacideynaysaa burka keega inuusan isku dusin. ama foornada qaar hadda dadka badi waxay sameeyaan, waxayna ka noqotaa foornada markay geliyaan keega ay sameeyaan dibka markay saa u geliyaan wax soo fuuraya inay noqoto hal mar dus ee dhacdo isku dhacdo keega. badi Soomaalida waxaas qabsata. waxaasna waxa keenayo xoogaha burka ku yaraado iyo baking powderka xoogaa zaaid ugu bata ama aad ugu yaraado labada meel. marka wax walbo waa qiyaasanaysaa. marka wax walbo marka saa u qiyaasatid maasha Allah tabaarakallah waa ujeedaa. marka saan ay noqoto waxaa kaaga soo baxayo keegii adiga aad rabtay aad ku haminaysay maasha Allah tabaarakallah. baaquliga ama digsiga keega lagu sameeyo
ama saxanka keega lagu sameeyo. Haddaad rabtid saxanka warqadaas oo dhigan kartaa. Haddaadan hayninna adiga xoogaa lacagtaas aad hayninna saliid iyo buraa marsanaysaa saxanka, kadibna waa ku shubaysaa foornada gelinaysaa. Hadda maasha allah tabaarakallah, keegii oo noo dhammaystirmay oo noo soo baxay wuxuu noqday keeg aad iyo aad u jilcan u qurux badan maasha allah tabaarakallah. Haddaad rabtidna sidana u jarjaranaysaa, haddaad rabtidna waxaa waa asagoo dhammaystiran ama afar cadow u jaranaysaa inta xasab ay familkaaga ay yihiin ama gurigaaga inta qof maasha allah walaalkeyga ama walaasheyda haddaba intaan soo gaartay waxaan kaa codsanayaa muuqaalkan inaad meel fog aad gaarsiisid, laygana aad u badisid, commentigana aad ii soo qortid. insha allah hadduu ilaahay idmo dhiirgelinteeda gacantaada ay ku jirtaa. walaasheyda ama walaalkeyga aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. insha allah ilaahay kheyr ha ku siiyo, waqtigaad gelisayna waqti aad ku nacfisay allah kaaga dhigo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.